بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، waxaan maanta rabaa inaan ka hadlo haddii alla idmo waxyaabo ummadda Soomaaliyeed ku soo kordhay oo ku soo kordhay markii la yiraahdo dib baa loo qaadan u soo kordhay markii la yiraahdana faa'iido loo qaadane waa waxyaabo ummadda Soomaaliyeed u soo kordhay ayaan rabaa inaan ka hadlo oo u baahan ama se mudan in la qaadaa dhigo oo la sheego kaasi waa qodobka kale ee labaad ee rabaa inaan ka hadlaana waxa weeye wax Soomaaliya ku soo kordhay aan ka daayay awalba ku sii kororsanaa oo dhibaato ah ummadda Soomaaliyeed haysata. labada qodob baan rabaa inaan si kooban uga hadlo. qodobka hore ee u soo kordhayda waxaan rabaa inaan halkan mahadnaq aad iyo aad u ballaaran uga soo jeediyo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar. mahad ballaaran oo la soo koobi karin ma rabaa inaan ninka u soo jeediyo waa mudane Cabdi Maxamuud Cumar, Cabdi Fataax Maxamuud Cumar. Soomaalida ayaa kelmadda cabdiga magaca ula baxda, waana dee Soomaali markaynu nahay wax ceeb iyo dhiba midna ma laha, laakiin haddii kelmadda af carbeed lagu bedelo kelmad xun oo ceeb ay noqono waa adoon. marka Cabdi Fataax ayay aabihii iyo hooyadii ugu walqaleen oo magacaasa ninkaa la yidhaahdaa, laakiin Soomaalida dhaqankeeda ayaa cabdi iska barto waa Cabdi Maxamuud Cumar sida loogu yeedho ayaan amba ugu yeedhayaa. ninkaas ayaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa, waana sidan soo socotaa. intii ummadda Soomaaliyeed madaxweynayaal soo martay ama Soomaali weynta xamar laga maamulo ha noqoto ama ha noqoto Somaliland, Puntland, Jubbaland, meel walbaland, Djibouti, Gaarisiya, Mandheera iyo NFD, meel kastoo ummadda Soomaaliyeed joogto, Nairobi, qurbayaasha, in alla intii madaxweyne iyo qabqable iyo mas'uul ummadda soo martay Soomaaliyeed ee magaca Soomaaliyeed sheegata, in alla intii dagaal oogayaal iyo qabqable soo martay iyo la igama daba hadli kare waxaan sheego un baa jira, iyo intii soo martay maxkamado annaguma wax saxayna yidhi, waxbaa khaldanaay annagaa saxayna yidhi. wax alla waxa ay Soomaalidu ka kooban tahay bulshadeedu, garsoorayaal, macallimiin, ardayda jaamacadaha iyo kuwa kaleba, ururada haweenka, dhallinyarada, bulshada, waxoo idil intaasoo dhani waxay qaban kari waayeen muddo 100 sano ah. hadda waa 100 sano oy ku dhici waayeen culamaauddiinkii shareecada iyo diinta yaqiinay iyo siday diintu wax u sinto ay u cadaaladaysa yaqiinay way yaqaaniin, laakiin kuma dhaqmaan wax ka hor joogabe balaayadan kaleen tiriye baa ka hor joogte iyo wax maha karadeene. aqoon-yahanadii qurba joogtii dhaqamada dibadda soo martay iyo wadamo dadku wada siman yahuuna wax kala sareeyaa jirin, waxaasoo dhani 100 sano waxay ku dhici waayeen oo awood u waayeen mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, ayaa xadhiga ka jaray oo ku guulaystay mar qura intuu u fikiray oo Ilaahay baa ku soo hadeeyay oo ku soo hanuuniyay oo u fikiray ayuu mar kaliya xadhiga wax gooyan la waayo xadhiga ka jaray. ummad Soomaaliyeed oo kala qoqobnayd oo kala xidhnayd oo jaahilnimo kala qoqobtay, hadda waa jaahilnimo kala qoqobtay, oo ninka wanaagsan ee shaqaysto la dhaliilayo, ku aan shaqaysanin kaba batolan karin oo bir uu dugaaga iyo waraabaha iskaga celiyo xoolahana ku qasha aan samaysan karin oo wuxuu fahmayaaba jirina jaahil iska noola ayaa ka intaasoo dhan qabsan kara dhaliilaya. bal waxaasoo kale xagee lagu arkay? waa jaahilnimo 100 sano ummadda Soomaaliyeed ku soo dhex jirta weeye. Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ku guulaystay inuu rikoodhka jabiyo oo ummaddii Soomaaliyeed kala qoqobnayd uu isku furo uu isu wada guuriyo
خير الله سيوان ودعين هناي وحنا ملينا ملينا وأمن هباي إني أمض بدنا الصومالي ودعين وأما هالنقطة قبيلك جبويها لو يقانو مقع عيب ما هي ومقع قبيلة وسيؤدي هنا إيه أنت وناقة شعلية وحقرد نمضى شعلية الصومالي ذا كروه اللي بين أدعين وأمن هبابا عدالة هبا أدعين حق أدعين وكتل أبصرين نكاس خير الله سيها لو دعيو إن وحكلون وجه إذا ما شرتو عمل كان أو سماية أو قبتي وحكرتي قبتي لوايي وبان وجه إذا إن أنا دعيو ونكو أمانية هي إن لو أمانية إن لو دعينا ويستاهلها قلبك وحبا كوسي ديران مهيه هلكا أيان كجب حياة waxaan haddana rabaa inaan ka hadlo wixii aan idhi Soomaalida uu ku soo kordhay ama se uu ku sii kororsanaa awalba ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada haysata Soomaali Maxameday waliba gaar ahaan mas'uuliyiinta dalka xukuntay inta ay jiraan kuwo goboladii dalku ka koobnaa hadda dalka Soomaaliya goboladu ka koobnaa weeye ilaan meel kale lagama keenin oo lagalama imanin inta ay jiraan kuwo qoqobayaal u sameeyay darbiye ku kala xidhay oo gooni u wato anaga madaxweyne ka ay nidhi yiri inta ay jiraan kuwa hunguriga la ordiyo dibadda u wareegaysanaya oo lacag doonaya oo macdantii iyo maarkii Soomaalida iib ku raadinaya markaan macdan leeyahay macdan dhagaxyada kaliya looma yaqaano waxa samag ama malay dalkeena ku jira waa macdan waxaynu foox ama salubaan iyo malmaleenahay waa macdan waxaynu macdan qarsoon oo dhagaxya ah oo inaan inagu warba ka haynin dalka ku jirta waa macdan xoolaha la dhoofinay xoolaha dhadiga la dhoofani waa macdan dhirta la shariye la dhuxulayna la dhoofinay waa macdan hatta geedaha la rujinay waa macdan la dhoofinay war waxaas oo dhan oo macdana kuwa dana gaarihii iibun ku raadsanay oo dibadaha wareegaysanaya intay kuwaas iyaguna jiraan intay jiraan kuwo fidma walayaal oo mooshin uu la ordayay ama soo jeedin aan ilaahay la ordaya oo intay marka hore laba ruux isku diraan haddana la kala safano meeshaas hunguri iyo lacag raadsanaya mooshin uma shaqo ka dhigteen mooshin baa maanta la jiray baa lagu oran kuwana Allah inaga qabtay inta ay jiraan danaystayaal iyagu wax ay gooni u helaan mooyee qarannimadii iyo Soomaalinimadii iyo wanaagii ummadda Soomaaliyeed lahayd aan damba ka lahayn dana iyagu gaar ah wataan mooyee inta ay jiraan kuwa shabaab la yiraahdo magacaas bi'iyeene oo diintu ka khaldan tahay diinta ka khaldane inta ay jiraan oo diintii doonaha ka khaldanaatay haddana waa ummad Soomaaliyeed weeye waa ummad Soomaaliyeed weeye oo si in loo fahmo ay ahayd in si loo fahmo ay ahayd koroho xataa inta loo tago oo mas'uuliyiintu u tagto ay jilbaha iyo gomadaha qabsadaan oo ka dhunkadaan oo ilaahay war walaalayaal ummadda Soomaaliyeed xumaanta ka daayo oo imaada oo waxa la wixii iyaga mas'uuliyiin ah qabqablayaalana shaqooyin sare oo dawladda Soomaaliyeed ka tirsan loo wada dhiibo Anwar Saadaad naxariis waasa Allah siiyay madaxweyne wuxuu ahaa Soomaaliya dalka Masaarida markii dalka Yuhuud intuu weerar ku qaaday dalalka Carabta ay Masar dhulka qabsadeen oo Suuriya dhulka qabsadeen oo Lubnaan dhulka qabsadeen oo Falastiin oo dhan qabsadeen oo Qaahire u soo dhawaadeen oo qanaat Suways ka soo gudbeen madaxweynihii markaa joogay Masaarida oo Anwar Saadaad ayaa habeen madow iska duulay baarlamaanka Yuhuud ayuu shir la galay intuu u tagay geesisana khudbad buu u sheediyay khudbad wuxuu u sheediyay dhalisay in Yuhuudi ay horta bal Masaarida dhulkoodii uga kacdo bal kuwa kale horta ha dambeeyeen in dhulkoodii uga kacdo waxa weeyaan kelmadii uu yiri waxa kamid ahayd Yuhuuday inta uu jiro dulmiga aad ku haysaan ummadda Carabta idinkuna nabad kuma seexanaysaan ogaada idinkuna nabad kuma seexanaysaan ficlan Yuhuudi nabad ma aha absi iyo walwal iyo walaac iyo istaanbay baa nafta ka qaaday warinta sidaas oo kala la yeelo nimanka shabaabka niman ismiqiiqa oo u tago oo waliba madaxda oo shilbaha iyo gomadaha inta qabsadeen war umad Soomaaliyeed ma tiidin
ولا ليال أمد الصومالية دبعتها كده أيوة بالإمادة إنه واحد قيب سنة يتر هذا إلى تعال له ونما كان مشكلة دوغ الحليو أنت أي عيدا ما أشرب يهدلك شوغان يشرن رؤية شاشوسين ميران إيو أي شوغان وطنك أمد الصومالية وناق يدولة دي ما حيستيقوا هذا لما كان وطنك مسؤولين تكوهو وفرماشية خيرية أنت الله الماشية لا شقيسيه waxaa dhib soo akhriyay inta ay jiraan xornimo ma haysataan ee ogaada ma haysataan xornimo inta ciidankeenu uu daciif yahay ee ciidamo kale ku amar ku taagleeyaan inta dalal inaga tabar yar oo waligoodba inaga tabar yaraan jiray ay ina maamulaan oo marba dekad iyo meel inagu aynu leenahay oranayaan saldhig baan ka samaysanaynaa anaga meesha xukumayna ay oranayaan oo sheebkoodii lacag ku meel marinayaan oo kuwa hunguri iyo beedqaatayaalihii ay haye oranayaan war hooy dalku xormeeyo ogaada waxaas baa la rabaa sidii la isaga xoreyn lahaa in arrinta loo fakaro weeye waxaan soo sheedinayaa oon ummadda Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinteeda u soo sheedinayaa horta sideenaba waxaa ina kharibay باسبور أجنبي أن وطا ولا أردي أو قرص دورة بإسكت أوفيا وبيش دون آذية باسبور كان حتى دبلوماسي نفس الكيسة إن خربي إيه في سقالة هذا سهلة يا وربالعولك ورف ما لو دايبالي له ذلك إستان بي أنت هنكو سورهنو إستان بي حكم كميل قاله الدقدقة أنت هنكو سورهنو باسبور هذا الشانب تعددك هايستا أنك أرورين نما أوران كارو كما أرورين كارنيه لكن ما كان ممنوع إنه يروح باسبور أجنبي وتايدلك كشقيه وولي شقوا إنه مسؤولية وقبته ما كان ممنوع وحتى باسبور كجدودنا دبلوماسي أنا ما كسر قرينايو باسبور صومالي دوني سمايستي on meel laba hadduu doono اعتراف ka ahayn ummadda Soomaaliya balkaama ku maamulaa waxa qariib ah oo la yaaba sidee buu nin mas'uul ah oo ama wasiir bal hadalkiisa ba iska daa oo xubin baarlamaana balkaana warkiisa ba jooshi oo mas'uul bad dawladeed ah kaana warkiisa badaa war xataa ka dhulka xaqeeb biyatooniga mar hadduu ba dawladda u shaqeeyo sidee buu isaga dhoofi karaa oo dal dibadda u aadi karaa isagoon amar iyo ruqsad dawladda ka haysanin xagee lagu arkay wafti iska baxawn nin iska dhoofuun oo la leeyahay waa gudoomiye gobol ama maxaa dhahday waa xubin baarlamaan oo xorriyadiisu iskaga dhoofiya waxaasi xagu ka jira warba dastuurku waxaasi idinku qoran yahay war sawtayso nin dawladda ruuxa u shaqeeyay markuu dhoofayo sawtii dawladdu una u ruqsayn jirtay hadee doontana u diidi jirtay ruux dawladda u shaqeeyaa inuu baasaboor sheebka ku wato ma aha baasaboorkiisa waa inuu ama gareeshka dawladda yaalo xataa hadduu kuwa ajnabiga wata yahay baasaboorada ajnabiga ku wata hadduu diblomaasi yahay hadduu baasaboor Soomaali oo caadi yahay baasaboorada dalku waa inay jawaazaadka dalka yaaliin ama gareeshka dalka inay yaaliin weeye oo ruuxu markuu dhoofid u baahdo oo dawladdu ogolaato arrin macquul ah ay noqoto baasaboorkiisa la siiyo ku dhoofo laakiin baasaboorkaygan yaan sheebka ku wadan oo markaa doonaba waan iska dhaqaaqayaa war waxaasi ma dawladnimo ama waa fawdo weeye waxaan rabaa marka inaan idhaahdo ummadda Soomaaliyeed dhibaato haysata fawda ku jirta fawdo ayaa ku jirta dhoobo waraaq baa ku jira baasaboorada dadka Soomaalida ay wataan ee dalka gudihiisa joogay waliba inta dawladda u shaqeysa kuwa kala yeelkadooda waa in ama gareeshka ay yaaliin oo lagu xifdiyo oo halka lagu hayo oo markuu ruuxu dhoofi sababta uu dhoofayo la ogaado حتى مدحوينها يا رئيس الوزراء مدحوينهم مركو دوفيو او شر مدحيد اما الدلال كقيب جليو اما او محايرة هذاي مرتقال لو فيديه او دلو فيديه او اديو اما حتى ولد دلكو اسكوا في اللغة قعان عشان كمان مارني وميلها انه هو قرابسي تغيو حتى وين سفر كيساسي او نقضو مد لأوغي هاي او حبناها بارلمانكا iyo golaha wasiiradu ay ka warqabaan oo raali ka yihiin inuu noqdo weeye oo safar loo yahay madaxweynuhu oo safro oo ra'iisul wasaaruhu sidoo kale hadee laakiin ruux iska dhaqaaqi oo xubin baarlamaan baan ahayle oo iska safraya ama dawlad
goboleed baan madaxweyne ka ahay leh waxaa weeyaane ama xataa shaqaale dawla aan ahay leh war dadka baasaboorradooda ama gariishka in lagu hayo weeye oo markay safrayaan wax macquulahoo la og yahay oo dawladdu raalli ka tahay ay ku safrayaan haddii kale ay dalkooda joogaan waxaan u malayn arrintaasi inay inoo suuraday waa arrin adag waxaasoo dhanna boqolaal jeero horaan sheegay ciidan la'aanta inoogu wacan dawladda inta ciidankeedu uu daciifka yahay waxa aan sheegay waxba kama qaban karto waa in ciidanku shaqeeyaa waa in ciidanka sirdoonku shaqeeyaa waa in boolisku shaqeeyaa waa in militarigu shaqeeyaa waa in dalka la xukumo weeye oo awood ciidan oo ka amar qaadanaysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha awood ciidan oo labadaa mas'uul ka amar qaadanaysa inay shaqayso weeye ma doonayo hadalkayga inaan intaa ka badan aan ku sii daro waxaan ku soo gabagabeynayaa oon leeyahay allaha kariimkii ummadda soomaaliyeed nasri ha u soo rogo ummad dalkooda qarannimadiisii iyo mas'uuliyaddiisii iyo madaxnimadiisii jecel oo doonaysa allaha subxaanahu wa tacaalaa ha ka dhiga ummadda soomaaliyeed inta ina walaaqaysa ee dalka dhibaatada ku haysee mijinta ina jiidina allah inoo soo hanuuniyo oo midnimada iyo sharafta iyo wanaagga soomaaliyeed allah ku soo hanuuniyo inta ayaan maanta warkayga kaga baxayaa waxaana leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh